diraacda ayuu leeyahay waa lacag harmuus lagu ururinayo oo maaragtay badda lagu bixinayo South Africa iyo Koonfur Africa iyo loo dirayo France lagaga dhisanayo maxaa la dhahaa Batimaayo oo lagu iibsanayo dhul maxaan ku dhahay Hudismaayo dhan lagu iibsanayo ayay dadkuna Bikaduus iyo Belbela ay u fadhiyaan magaalada dhaafdhaafta waa lagu fadhiyaa ayay leeyihiin marka waxa loo baahan yahay haddii qofku ku shaqayn waayo inaad iska riixdid oo tiraahid warad sidan waxba iguma qabanaysid marka waxaan leenahay dhalinyarada gobolka City ka soo jeeda iyo aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta barashanka iyo cadaadiska inayna laba cisho noqon hala sii wado waxaan leenahay hala sii wado aad iyo aad wax fiican baad qabateen isku soo baxa iyo maaragtay wadooyinka xidha aad baa idin salaamaya inta markaan ka gudbo ummadda reer Djibouti iyagu wax weeyaan magaalay waa dhaafdhaaftay waa lagu fadhiyaadii baa halkii taala weli wax isbedel ah ma arkayno waxaan xalay dood yar oo ka socotay Maxamuud Jaamac maaragtay LVD uu ka hadlayay ubadka madaxweynaha iyo xaaskiisa iyo islaantiisa iyo ma aha buu in laga hadlo taas waa runtiisa waxa weeyaan waa run oo wax weeyaan madaxweyne dadku xuma dhiiban waxay wax u dhiibteen waxay xaas wax uma dhiiban xaaska madaxweynaha waxay wax u dhiibteen waa madaxweynaha haba saahaatee madaxweynihii hadduu seexday oo qof oo tiraaho war waad seexatay oo hawshii aan ku dhiibanay waad ka seexatay ama iska soo celi oo iska eriya haday waayaan de qofka dul jooga un baa hawshii iska qaadanay waxani waa dhaqaale waxani waa masab waxani wax la iska sheegay ma madaxweynihii halkan joogay uu seexday islaantu ma oranayso ilmuhuna ma oranayo faamiguna ma oranayo ninkii hadduu seexday waxa weeyaan asturo oo marada saara maaragtay hawl wixii qabanaya anaga qaban karno marka waxa weeyaan arbishilbada waa kuwa ku waday darkiisa idaacadaha ee dhex wareegay Facebooka iyadoo wuxuu yiri Maxamuud Jaamac waan ka hadlay shalayba way soo qabteen waan ka hadlay laakiin waa runtiisa sidoo uga hadlay wuxuu yiri war dadka reer Djibouti xaaska madaxweynaha iyo ubadkiisa waxba uma dhiiban waa sax arrinka ku saxay aba saahato waxa tiri nin waxaan arkayaa tiri secretary general oo dawladda governorka secretary governorka gabadh yar ay u hanjabayso oo iga raali noqon gabadha yar baa soo magacawday inay soo magacawdayna waa kii lagu soo dhigay codka daraa laga lahaa ninkaasi siduu yahay biyaha miyuu cabaa uu yar cabaa biyaha qofkii soo magacaabay waxa uu iga raali hawlay inay eriyayso ayna waqti ka qaadanayn ayuu garanaya Maxamed Cabdillaahi oo Cays ninka secretary general governorka codkii ugu dambeeyay Fatxi Bukaaciye meelahan ay soo baahiyeen la waday baraha bulshada jaamac tele iyo Khadre Maxamuud ay ka wada sheekaysanayeen iyo kuha ninkaas oo marka Maxamuud Jaamac maxaad ku canaanana ninka wasiirka Khadra soo magacawday Ismaaciil ba haduu soo magacaabin Khadra soo magacawday inuu Khadra ka cabsado calaacalo uu raali haw 10 jeer yiraaho qofka nimba ma soo magacaabiyada soo magacawday marka hadii aanu madaxweynaha la shaqeeyo haduu yiraahdo madaxweynaha ku soo shaqeeyay baa loo wala eriyaaba marka waxa weeyaan wadanka cid si dad ban u maamusha jirta waa xaaska madaxweynaha iyo ciyaalkiisa laakiin ummadda reer Djibouti uma dhiiban wax waa khaymad weeyaan iyo maaragtay tuugo iyo burcadnimo halkii ugu dambaysay weeyaan awood waxaan arkaynaa adduunyo la dhaco oo la xado laakiin awood la xado weligay ma arkin waa awood la xaday oo maaragtay ninkii loo dhiibtay laga xaday isagiina maaragtay aan lagu qabsan oo lagu soo eedayn oo war wixii ku dhiibanay aaway la lahayn maxaan ku iraayay dad kalena iska maamulanayo marka arrintaasi waa arrin dadka reer Djibouti u taalo waa sida aad sheegtay oo madaxweynuhu haduu idii shaqayn waayay wuxuu yiri mayde ka bastuuraan meesha waa wax arrin meesha taalo weeyaan haba saahato waxayba ku jahwareersan yihiin madaxweynihii iyo xaaskii ayaa lagu kala jahwareersay oo in baa madaxweynihii inuu nool yahay moodayso uu shaqahayo oo taageeraysa inna waxa weeyaan adiga arkayo xaaskii bay la shaqaynaysaaba oo waxa weeyaan xaaskii ciyaalkii baa shaqada la wadaa oo si la magacaabay dawladdii mar haddii ay magacaabayso oo arkaysid inay si toos u magacaabayso wasiiradii wax la oran karo ma jirto marka waxa meesha taalo in kacdoon dadweyne oo degdeg ah oo maadaama uu arkaysiin in codkii in la xaday dawladnimadii oo ninkii hantida loo dhiibtay uu haleeyay mas'uuliyadii loo dhiibtay inuu haleeyay iska daa uu itaal gabay iska daa taasi waa uu itaal gabay waaba isba uu xanuunsan yahay uu gudan kari waayay waaba isba laakiin uu ba haleeyaba wixii baa laga xadayba marka in degdeg looga qaado xilka qaadis wax la dhaho xilka qaadis in lagu sameeyo oo la dhiso dawlad ku meel gaar ah oo ummadda maaragtay gaarsiiso in iyaa loo baahan yahay oo gurmad ah waa article weeyaan in loo codsado article dad sharciyaqaan in loo codsado codadka ay maaragtay baraha bulshada dhex socdo in la soo qaado oo dad artikelada maaragtay
aqoonyahana ama maaragtay afukaayaala lala wadaago oo la dhahaa madaxweynihii dalka haddii uunan magacaabayn gufoornimoogiisii oo ay magacaabaysa islaantiisii ubadkiisu oy maamulayaan uunan amar isaga laga qaadanayn sideen wax u maarayn karnaa in la dhaha xal baa jiro article adeegsadaa jiro marka in xilka qaadis lagu sameeyo Ismaaciil Cumar waxaan lahayn orodoo naga tagaya naga dhaadhaciyo yaan lahayn marka in xilka qaadis loo adeegsado oo loo adeegsado inuu gabay nin hawshiisii gudan waayey oo maaragtay hawshiisii ay dad kale gacmaha kula jiraan oo caddayntiina loo haya ayaa loo baahan yahay ummadda reer Jabuuti in ay xoog iyo xeelad iyo fikrad wax walba ay adeegsataan loo baahan yahay arrintaas maaragtay aad iyo aad loogu sara kaco Ismaaciil Cumar oo naga dhaadhaciyo dadka kici doono waxayba ka daranba dadka mas'uuliyadda waddanka dad mas'uuliyad baa ka wada saaran Ismaaciil Cumar mas'uuliyaddu kama saarno maanta waxaan ka wadnaa qof aanan u dhaaran qaranka oo maamulaya haddaad aragtid hay'adihii ugu sarreeyay ee dowladda oo maaragtay codadkiisiina ay dhex socdaan baraha bulshada waxaa inoo cado halkaa inooga cad in qofkaasi uu xilkiisii gudan waayey in si degdegana xilka qaadis loogu sameeyo loona sameeyo golol loo dhan yahay oo ummadda reer Jabuuti gaarsiiyo doorasho xaq ah oo xalaala ayaa muhiima marka haddii dadka reer Jabuuti ay isku raacaan arrintaa oo maaragtay leeyihiin aqoonteedii iyo capacity-geedii iyo kartideedii waa wax article baa u yaala meel oo artikelada baa la isticmaali karaa loo adeegsan karaa laguna dhawaaqi karaa laguna dhiirigelin karaa ummaddu inay maaragtay abaabul ay maaragtay iyadoona xitaa dagaal dhicin artikelada loo adeegsado oo la dhaha qofkaasi in la yidhaha in aan amar boolisku ka qaadan in amar ayna maxkamaduhu ka qaadan in amar aynan ka qaadan baarlamaanku in amar laga qaadan dowladda in la kala diray dowladdii in la dhiso golihii lagu dhawaaqo oo la dhisaba marka arrintaasi dee waxay u taallaa dadka siyaasadda u qooqay iyay u taallaa iyo adeegsanaya sharciyo iyo maaragtay in de fadhiga waxba kuguma imayna maanta wadiga arkayo wax walba waxa weeyaan wax xoog iyo dhaqaale iyo lacag iyo weeyaan iyo cagajuglayn iyo weeyaan marka haddaan la isticmaali weydadoo tidhaahayde baashu fadhiga inoogu iman anigu uma malaynaya inay imanayso marka ummadda reer Jabuuti waxaan ku dhiirigelinayaa in qodobkaa la adeegsado oo lala kaashado sharci yaqaano in 10 sano ama 20 sano ay xaaska madaxweynaha iyo ubadkiisu ay maamulayaan waddanka dhaqaalihii iyo hantidii waddankana ay siday doonaan ka yeelaan qofkii ay ka yaabaan inuu maaragtay ka aragti duwan yahay ama ay ka baqaan inuu fikirkooga la dhacsanayn ay qabanayaan ay xidhayaan ay samaynayaan marka arrintaasi waa arrin u taalla shacabka weliba situu siyaasiyiinta maaha shacabkaas kale waddanka siyaasigu dadka shacabku ka soo dhex baxay awood gaara male laakiin waxa weeyaan waa ficil iyo wuxuu wada maaragtay inta uu ku dari karo waddanka iyo uu ka naxayo unbuu ku darayaa laakiin waddanka waxa iskale waa dadka shacabka dhaxalka dadka iskale marka dadka shacabkii inay abaabulaan ay tashadaan odayaashooda iyo aqoonyahankooga iyo siyaasiyiintooda iyo dhallinyaradooda ay yidhaaheen war maxaa noodana ninkii aan wax u dhiibanay haddii laga xaday awooddii uu isna odhan war wixii laga dhiibay uu iga halaabay ama waa layga xaday ama itaal baa i gabay ama anaaba gacanta ku haya laanno hadduu qofku wax qabanayo uu qaban kari lahaa inuuna qabanayna waad arkaysiin oo wixii loo egmaday maalintii loo igmaday halkii waddanku uu ahaa wax ka sii dhaca mooyaane ayna waxba kusoo kordhin marka ummadda reer Jabuuti taasi iyaday u taallaa waana hawl iyada u taallo marka intaa markaan ka gudbo waxaan kaloon u gudbayaa Soomaaliya awrta maanta wax iska xiiso badan tahay dhaqaalaha loo ururinayo maaragtay madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ee leeyahay mahadsanid madaxweyne oo ku socdo dardartii ugu weynayd oo maaragtay noqotay arrin mucjiso ah oo taariikhda caalamka kow ku ah marka waxa weeyaan waxaan hambalyeynaya ummadda Soomaaliyeed ee wadaniyiinta ah ee ka soo jawaabay baaqaas ee ku dhiiraday ee isku xilqaaday waxaan u hambalyeynaynaa aad iyo aad iyaan u hambalyeynaynaa taariikh cusub amba record cusub ayaad xitaa caalamka u dhigteen maaragtay Afrika ma caalamkaad u dhigteen marka waxaan arkaynay dad in ay mareen habaabiyaan oo kuwa maaragtay de qabiil madax maray oo maaragtay ma oran karo waa qabiil oo waa qabiil reebel ma oran karo laakiin waa dad kooban oo maaragtay dana dhaqaale iyo dana masab ka aaminsan oo maaragtay qabiilku madax maray oo de wax kasta oo la soo qaado waxay isku haystaan inay mucaarad yihiin oo weli hadda waxay la soo joogsadeen inay dowladdii yihiin ay dadkii iyagu mas'uul ka yihiin ay masabkii iyagu maanta hayaan ay abaaraha iyagu maanta u jahayn karaan dalka ay iyagu wixii dalka waan ku maamulaynaa ay lahaayeen de inay farmaajo ka raadiyaan ma aha farmaajo maanta waxba maayo isagoo maanta
lugaynayo gurigii ka baxay wixii uu hayay u wareejiyay wadanka waxba kama dhisan lacag ma xadin isagoo lugaynayo oo si sharaf leh xitaa waxay rabeen inay dagaalameen oo waxa wadigii ogaade wixii ciidamo ay isku keeneen geel ku dul qalanayeen wadigii ogaa marka waxa weeyaan lacagtii kolkii ay geel ay qalanayeen ay farmaajo la dagaalameen ay geel ku qalanayeen iyo dhaqaalihii ku soo qulqulayay wada arkaysan intuu la ekaa waxay hayday inay abaaruhu waqtigaaba way jireen laakiin ma u muuqatay ma u muuqatay markii ay iibsanayeen baarlamaanka ay 200,000 ayuu qofkii xildhibaan ahaa leeyahay ma siina ay lahaayeen ma abaaruhu way jireen ma u muuqatay in maxaan ku odhaayay markii ay guryaha iyo hantida waddanka ka dhisanayeen ay boobayeen dhulka waxaa aragtay ra'iisul wasaarihii lasoo magacaabay oo joogin ma aragtay 3 bilood oo aqalkii dabaqa meesha ciidamada badda ee xeebta gurigii uu ka kiciyay darkiisa marka waxa weeyaan waxaanay ra'iisul ma aragtay waddan ay u shaqaynayaan ma nin walba waa adduunka waa caynkaaga waa dherigiisa waa weelkiisa wax u raadinayo waxaan ka wadaa maanta waddanka waxa madaxweyne u ah maxamed xasan sheekh maxamuud waxaa laga sugayaa de inuu mucaarad yuhu isku haysta laakiin wuxuu arkay ummadii oo weydaaratay oo madaxweynihii guuray ee guriga filada ka baxay raacay guriga de waxa waxa meesha loo fadhinaynba waa muuse siduu yalaxaw iyo geeli iyo badbaado qaran iyo qorigii guriga nooga soo baxday ayaa horta meeshan ayaaba dhibaato keen marka waxaan leenahay madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo haddii uu uga baxay maxamed odagii muuse suudi yalaxaw guriga alxamdulilah waxaan leenahay ninkaas hadduu gurigii filada looga baxay dad baa soo qoraya oo yidhi war haddii muqdisho guri laga dhiso maxamed muuse yalaxaw baaba odhanaya gurigaa kale la dhisana iga soo bax muqdisho anna kaale iga soo bax buu odhanaya war gobol kale ha laga dhiso war waxa weeyaan waxani waa hunguri waxani waa siyaasad maaha dadkuna ma wada xumo ee dadka madaxweynaha garab jooga ee maaragtay gacmihiisa midig iyo bidixa waa dadka maanta masabka haye un weeyaan waa xasan sheekh maadiradii marka waxa weeyaan waxanina waa hunguri wax meel gaarsiisan maaha ummadda Soomaaliyeedna wax ma kala leh meel lama kala jirto laakiin siyaasad iyo hunguri wixii marka laga dhigo iyo qabyaalad waxaas yaa xamaasadeynay laakiin waxa loo baahan in la isxakameeyo oo wixii siyaasadana siyaasad laga dhigo wixii wadaniyadana wadaniga laga dhigo oo wadanka wixii de sharci lagu laakiin wixiiba haddii qabyaalad iyo hunguri labadaa uun awoodda la saaro aad bay u furxmanaysaa ummadda Soomaaliyeed maanta indho dheer iyay ku haysaa dalka iyo dadka arrintaas la siyaasadeynaya lacaga lagu xalaalaysanaya lacag lama ururin karo abniga maxaa laga qabo inay dhibaato u keenaysaa lacagta waa ila waad ku fashilmaysiin haddii lacagtaas ay dadku jeebkooga ka bixinayaan aad fargashatiin ilaa waxa weeye abaaraha haddaad wax ka ururinaysiin dee u keena qorshe istaraatiijiyaded oo abaaraha lagaga qayb galo inigaa maanta masabkii haya inigaa madaxweynaha wixii aad dadka u mucaaradayseen talada ugu ordayseen waxaan u malaynayaa inay ahayd dhaqaalo ururso iyo guryo dhiso laakiin maba ahaynba qorshe aad hayseen ood ku wajahayseen dalka dadka inaad ku badbaadisiin ma ahayn haddaad qorshe hayseen dee qorshihii baad soo bandhigi lahaydeen ood ku shaqayn lahaydeen laakiin waxay u eg tahay madaxweynihii oo guuray oo gurigii niga baxay oo xilkii wareejiyey oo aan haba yeelaate musuq maasuq ka caagan oo maanta halkaa fadhiyo inaad daba socotiin ood weli haddaad daba soco faqfuraynaysiin ood wixii aad ku ballan qaadeen aad lahaydeen argoosi siyaasadeed ma dhici karayo ma samaynayna aad lahaydeen aad bilowdeen iyaan arkaynaa waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed ha ku khashifmina waxaan leenahay gurigaa la dhisayana ha noqdo guri aadan yar dhalinyaro abaa yidhi ha noqdo guriga ummadda Afrika ha noqdo war anagu ummadda Afrika oo dhan waxbaan dhisaynaa waxa weeyaan anigu waxa odhan lahaa guriga ummadda Soomaaliyeed ee ku suntan madaxweynaha ama mas'uulka maya guriga ummadda Soomaaliyeed ee ku suntan mahadsanid musuq maasuq diido mahadsanid ku suntan in loo bixiyo guriga ummadda Soomaaliyeed ee ku suntan musuq maasuq diido mahadsanid lano xasan sheekh hadduu taramkii hore maaragtay musuq maasuq wax ku helay uu wadankii ku cunay maanta u arkay farmaajo oo shacabkiisa sidaa ay isagoo xitaa madaxweyne ka dhaadhacay ay u daba joogaan musuq maasuq la'aan iyo ammaano xafid dee waxaa dhici karta xasan sheekh maxamuudna inuu ka dheeraada musuq maasuq u yidhaa war waxaani wax sharaf laba oo sharaf lagu gaadhaba maahayne sharaftuba ilan waxay ku jirtaa qofku hadduu bulshada si daacada ugu shaqeeyo uu maxaan ku dhahay xasan sheekhna dee ka qayb gala guriga inuu meel ka dego oo la yidhaaho inkastuu guryo badan leeyahay isagu oo maanta dee waxaa la rabaa qofku inuu guryo lahayn waxa weeyaan waxaa la rabaa
qofku inuu guryo badan iyo hanti boob iyo hanti shaqaysi ku jirin uu caadi yahay raba marka waxaan leenahay in qof kasta oo gudoomiyaha duqa magaalada madaxda ha ahaato taliyaha ciidanka ha ahaato wasiirka dhaqaalaha ha ahaato madaxweynaha ha ahaato ra'iisul baarlamaanka ha ahaato qof kasta oo muwaadin oo musuqmaasuqa ka hortagay oo ka caagan in laga qayb geliyo guriga inuu ka dega maaragtay qayb guri qasri ah oo ballaaran oo loogu talagalay maaragtay maaha farmaajo kale farmaajo waa nin caalamku wax ka dhisan karaa haddii qofku qoyskiisa ay noqoto caalamku wax ka dhisan karaa meeshu doona wax ka samaysan karaa lacag u diisan karaa ها السلام عليكم مرحبا war bal ku soco maxaad kaga qayb galaysaa barnaamijka waxaan imika ka hadlayay de wax badan baan ka hadlay waxaan hadda imika carabka ku hayay lacagtii maaragtay loo ururinayay madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo oo laga yaabay oo qabsatay siyaasaddii soomaaliyaba jaha wareerisay oo laga yaaba xasan sheekh xitaa wuxuu isleeyahay la yidhi war miyaad ka qayb gashaa waxani ood bixisaa lacagta kuwa mucaaradayana wararkaynay oo iyaguna intaasoo baadhi iyo xaflado dhigayo lacagta madaxweynaha loo ururinaya abaaraha la geeyana way ku habataqayaan iyaguna xaflado iyo baadhi bay dhigayaan waxay dee lacagaha iyagu ugu bixin waayeen abaaraha mooyaane waxa weeyin waa mooryaantiyo horta soomaaliya waa la xabaalay kowdhe soomaaliya waxay gacanta u gashay niman mooryaana oo ajnabi wato iyay gacanta u gashay oo adiga arkaya xafiiskii tobanka ugu fiican afrika noqday sirdoonka waa kaa la baabiyey naag dee dhimatay oo shabaabku dilay bay mataqaanaa beentoodii oo dhanna way soo baxday horta dee annagu haddaan nahay nabad iyo nololna lagama badin laakiin imaaraad iyo kenya iyo cadowgii soomaaliya ayaa maaragtay mataqaanaa guusha iyo dad dhuuniraac moogta oo ayaa maaragtay halkaas soomaalida dhigay laakiinse waxa muhiim ah oo mustaqbal aad u wanaagsana waxa ay tahay nin kastoo dadkeenna soomaalida wanaag iyo waxtar u keena inaan garab joogsanaa qurux badan sida imika ninkan iska casilay gobolka city iska casilay oo aan rabnana sidii farmaajo kale inaan isla maaragtay maqaam fiican dhigno nin alla ninkiina damqana waxa weyn halkaasaan ka sheegaynaa nin alla ninkii wax noo tarana saasaan u garab joogsanaa intaasaan kusoo kordhin lahaa maaragtay aragtideeda gaabo ma waxaad leedahay ninkii gobolka city iska casilay halla maamuusaad leedahay iyo ninkii kale gobolka ninkii kale wariyaha ahaa isaguna aawa iska casilay idaacadda yidhi haddii arrimaha iyo xasuuqa aanan lai ogolayn in aan warka ka sheego waan iska casilay ninkaana uu jiray soomahay ninkaan hadda waan ku xogsiinaynaa moogtahay waa wax istaba soconayo waxa weyn eeg waxaa la yidhi allahuma salli calaa maxamede waxa weyn haddii dadkaagu ay maqaam fiican iyo ku sharfi waayaan cadow baa ku gumaysanaya waa run kolka waxa weyn lacagi way naga baxdaa une maanta taa farmaajo iyo ficilkaa uu sameeyey annagoo ka qayb galnay oo qaybtayadiina dhiibinay yaan kuwan kale iyo kuwa soo bixi doonana nin alla ninkii soomaali ka naxiya sida ina cumar mataqaana waxaan leenahay mataqaana oo dheer ku leenahay waa gacan ku dhiigle sida ninkan tuugee la doortay ee xasan sheekh mataqaanaa ee burcadka iyo kooxdan la socotay maaragtay qabyaalada ku agordaysa waxaan kaloon maaragtay nin alla ninkii dadka af soomaaliga ku hadlay walaalaha wanaag u tara qowl sanna ilaahay ka yeelay wala joogna nin alla ninkii ummadda ka naxiyay booba wuxuuga ee bahdila ee ajnabi u bahdila sida ninkan big bolt ee Djibouti haysta ninkii sidaas sameeyana waan cambaaraynayna ma u malaynaysaa arrintani inay tahay wax cusub oo ku soo kordhay oo ummadda Soomaaliyeed guul ay gaadhay oo dad baa isku haysta madaxweynaha ku xumee xisbiga nabad iyo nolol ku xumee madaxweynihii hore ku xumee ku mucaarad bay isleeyihiin oo weli hadda waxay ismoodayaan inay mucaaradnimadii ku joogaan oo adiga arkay sidee lacag loogu ururin iyo ku mucaaradayaan ay barbaraa bulshada ka hadlayeen iyagoo baadhiyaal dhiganayo oo South Africa Sweden Canada Europe
meel kasta ingiriiska iyagoo baadhi ku dhigayo maalin walba hool maxaan ku dhahay intaasoo milyan ku baxayso lacag ku bixinayo ayay ku leeyihin farmaajo muu abaaraha ka gargaara siduu wuxuu madaxweyne yahay farmaajo marka ma u malaynaysaa arrintani arrin soomaalida ku leh rakood cusub oo ay dadka soomaalidu gaadheen oo lagaga dayan kara caalamka oo ku cusub oonan weli caalamka soo marin oo ay kuwan xitaa iminka xilka la wareegay laftigoogu haddii ay musuqmaasuq la'aan ku shaqeeyaan oo ay ku suntanaadaan inay dad musuqmaasuqa ka hufan ay yihiin dhiirigelin u noqon karta in berri ay qabtaan ay degaan oo iyagana saasoo kale loogu mahad celiyo waxaa iyagu dad ay ka dhaadhacayaan maaha kood haye waqtigan xaadirka in joognay adduunyadii dayaxa ay wada tegtay doonaysa inay degmooyin dayaxa ka sameeyaan iyagu see waxa u cunaa unbile imkadan aan kula hadlaya dad barakacayaal oo meel iska deganaabay cagaf mariyay waan ogahay kaxda xaafadda kaxda la yidhaha waa sida ninkan gacan ku dhigle Djibouti haysta waa isku group baa la yidhi waa isku siyaasad waa isku xisbi marka waxaan ku sheegayaa waxa halkaa ka soo baxday aragti wanaagsan oo ku dhisan in maanta dadka Soomaalidu ay cadowgooda u midoobaan dadka Soomaalidu ay arkaan cadowgu laba way ka gudaha iyo dibadda way waan gartay marka waxa weyn wixii dhagihii wareer qaban waalada ma qaataan waa run wuxuu dadkii go'aanka fiicnaa dadkii maskaxiyan iyo caqliyan iyo diiniyan u noolaa ee ilaahay maaragtay uu keenay arladan waxay yidhaaheen war buuq badanba inaga dhaafeen nin alla ninkii ummadeenna u naxa nin alla ninkii ummadeenna sumcad fiican u keena nin alla ninkii ummadeenna maatidooda iyo carruurta iyo maxasta u damqada aan garab joogsanno oo maxaan ku garab joogsanaa aan u heelinaa la yidhi oo aan tusna caalamka eeg maanta waxaan arkayay 3 idaacadood oo waaweyn oo AFP ay ka mid tahay ayaa yidhi waxaan weligood dhicin buween warun in ummadii intay kacda ay tiraaho mahadsanid madaxweyne ee ka taafus arrintaas haddaan ku weydiiyo arrintaa haddaan in yar kaa dhex galo way fiican tahay sida arrintaasi waa sida aad ka dhawaajisay oo gobolka City iyo Djibouti iyo Jigjiga iyo Kenya iyo Soomaaliya meel ummad Soomaaliyeed joogto maanta ummadda Soomaaliyeed waxa u soo hoyatay guul baa u soo hoyatay inay tusto dunida record cusub iyo maaragtay jiha cusub oo adduunyada aan laga fikirayn madaxweyne xoog meel lagaga tuuro madaxweyne musuqmaasuq lagu soo eedayo madaxweyne maaragtay kacdoon lagu rido madaxweyne iyo nin maaragtay mahad celin ay ugu kacday bulshadii isagoo maaragtay mucaaradad xoog leh iyo agajuglayn iyo fiilada nooga soo baxaya mahani waa mahayagii isagoo waxaasoo dhan lagu hayay maanta in maxaan ku dhahay arrintaas aanan laga dhigin madaxweynean guri u dhisaynaa uuna islaam waliba lacagta intay meel ka dirto guri meel laga dhiso oo kaliya haatay arrintani ay ka weyn tahay oo laga qoro wax dokumenti ah oo maaragtay taariikh ahaan galo dhaqaalahan meesha soo galay inta uu leegyahay inta kunay qofa bixisay inta maxaan ku dhahay in sharciyad loo sameeyo in wax Geneva la dhigo oo loo dhigo oo wadamada oo dib loogu celiyo wadamada maaragtay madaxweynayaasha isku dhijinaya in sharaf ay ku jirto ay ummadaada sharaftu dhex taalo oo lacagta ummadaada dhex taalo miyaynan ahayn oo wixii in laga dhiga wax international oo la soo geliya maaragtay hay'adahan qaramada midoobay sida midowga Yurub Mareykanka loo bandhiga dhaqaalaha oo la yiraahdo lacagta inta la eeg ee bulshadu keentay ha loo sameeyo daraasaad iyo maaragtay si looga faa'iideysto wadiga maanta adiguba leh gobolka City ninkii iska casilay durba wadiga soo qaatay ee ka dhigtay maaragtay archive waa wixii shalay dhacay ee toddobaadkan dhacay baan durba anagoo maanta soo qaadanay waxa dhici karto idaacado badan baa hadalaya la yidho oo caalamka oo dhan oo Afrika iyo meel walba waxa dhici karta inay arrintani noqoto arrin la baaho si aynan loola baahin oo waxan ay noqoto hal abuur ummadda Soomaaliyeed ay leedahay miyaynan u baahnayn in loo sameeyo kuwa dad jiridiga ah oo sharciyan xagga sharciga u qaabilsan oo waxani maaragtay nidaamiya dhaqaalaha inta uu leeyahay guriga lagu dhisayo sida uu guriga sharcigiisu noqonayo hodhow maaragtay dadka lacagta bixiyay hadday murum ka keenaan sidii maaragtay wixii lagu xalin lahaa miyayna u baahnayn waxan inay noqoto taalo
ummadda Soomaaliyeed iyo caalamkaba u faa'iido way tahay oo waxa weeye horta waxaan ficilkan waa diiday horta madaxweynuhu ilaahay raalli ha ka ahaadee marka kowdhe balse waxaa la yidhi dadkan qamaamay dadkan arkay runtii iyo beentii kala arkay dadkan miyaad qaban kartaa baa layidhi lama qaban karo waxaa la yidhi waa ka iyagaa wuxuu uga dhawata iyagoo wuxuugii oo dhan sameeyey wax ka badan 20 cisho ayaa la darsay oo khubaro kasta isku timid halka ay dhig waxaan ku ri qoladii xaraas qaran mataqaana madaxweynihii xilkii uu wareejiyey ra'iisul wasaarihii inuu isu wareejiyo Soomaa wada yarkay isaga shaqeynaya oo wuxuu ansixinayaaba kuwii la soo magacaabay ooya ma garatay marka waxa weeyeen sallallahu ala maxamed ummadii Soomaaliyeed 4 sanadood mataqaana la jahwareerinayay iyo ninkii soo qaadan jiray dastuurka ayaa maanta dafirayba ma maqlayso oo daawalayso hadda ninka waa professor baa lagu leeyahay waa hilunaar qabiilisti kee weeyaan waa ku professor maxaa la yiraahdaa oo idaacadaha uu joogay oo waa kii lahaa dastuurkii uu dafiru diidaya waan maqlay may anaga abdooyo imika waxa anaga nagu muhiima arintaas inta la qaran laga dhigo oo ay noqoto taariikh Muqdisho taala ama ummadda Soomaaliyeed arintan sidan anigu ku arkay ama aan maaragtay ana mataqaana si waadax la igu sheegay waxa weeyin oo ay tahay wax caalamku soo koraya mataqaana talaabadii ugu horeysay shacab qaabo waanga ficil celin bay ka dhigantay kow iyo marka ficilka loo celinaya reer galbeedka ugu horeeyo la leeyahay mataqaana hadda ushalayna duulaysan jirteen mataqaana maanta anaga ninkii noo donqada anaga cirkaa genin meel jeefkayga ma xaquntaan waanga okay marka iyagu marka tilimka waa in qaramada midoobay qaramada midoobay lacagaha islaamka laga ururiyo carabaha kristan baa lagu masruufay ma taa kama wado abdo taa kama wado deena isfahamnaa muhiima taa kama wado anigu waxaan ka wadaa qayb waxa jirta u qaabilsan dhaqanka iyo xeerasha iyo wixii adduunka ku soo kordhay ee ilbaxnimo ah u qaabilsan baa jirto si wax dhaxalgal ay u noqoto oo qaramada midoob loo dhigo oo la yiraahdo ay ku suntanaato ku suntanaato ummadda Soomaaliyeed kolkii la dhigayo la yiraahdo arintaas waxa caalamka qofkii u horeeyay sameeyay uu ahaa ummad Soomaaliyeed bay hadsi loo yiraahdo loo dhigo duwaanka qaramada midoobay loo dhigo ayna noqon islaan jaga iibsanayso wixii ayna noqon lacag loo ordayso in wixii sharciyan iyo dadka sharciyaqaanka iyo hay'ado loo dhiibay miinahayn soo waday macna ma lahayn kana waa disii hadalka waxaan ku sheegayaa oo ay tahay wax walba oo halka munaasib ku ah waa laga baaraantigay kolka waxaan ku sheegayaa inta aan Yurub ba tagin waxa la xiriir ururka midnimada Afrika la xiriir ururka midnimada Afrikana maaragtay ka talin doona waxa la rabaa wax kala ma waxa ka dhacay Soomaaliya inuu saameeyo Afrika oo dhan waa run marka taada daryeesid ayaad u talaabi kartaa reer galbeed iyo Carab iyo meel kale waa run marka waxa maaragtay oo Ilaahay yaa mahadda iska leh maasha Allah iyo niman islaam oo Soomaaliya oo nooc walba leh oo qabiil walba leh Soomaaliyiin maanta Soomaaliya oo dhan weyn maanta Soomaalidu hiilees waa run yeeshay marka anaguna hadii aan nahay dadka alla gobolka city ku beeray ama afka Soomaaliga Ilaahay dhaxal u siiyay arintaas wax weyn bay noo tartay waa tusbax furmay waan gar marka waxaan anaguna ku codsanayaa kii furmaajo waa bixinay kana waa inaan bixino labadu haystaba socdo abaartana waa laga qayb galayaa waan gartay oo dadka maanta lacagta u lunay abaarta way ka qayb galayaan laakiin kuwa qiiqa isku qarinaya tuugta mataqaana ee Mooriyaanta shaqadoodu iyagu ma socoto waxaan sheegayaa marka dadkii gobolka city oo abaartaas Soomaali saameysay oo iyaga barakac waliba u dheer yahayna waa in la isgarab wadaa waa in dadku midoobo waa in meel qura la isugu yimaado waa in meel qura laga duulo waa in meel qura maaragtay wanaag iyo is iyo
sharaf halkaasay ku jirtaa wayna ahayn isgarabyaa iyo sidan iminka aad sheegayso ba meel uu ka ordayo waxa meelna lagu gaari waa meelna waa lagu gaari waa lacagna way naga dhamaatay meelna waa lagu gaari waa waxaan rabnaa haddii dadka ay maqlayaan maanta ama codkayga gaarsiiya meel kasta ku tuura meel kasta gaarsiiya waxa aan leenahay kolkay colaaday jirto ugaasku waa qolqol joog gando maba shaqeeyo waayada nabadu timaado iyo isagu shaqeeyo ahaato dhe gowde inta ka horeysa in aysi intuu isku tago halkaa fadhiisto oo mataqaanaa oo isagu markuu tiisa daryeelo Soomaali weyna way u imanaysa laakiin Soomaalidii maxay ku imani iyaba afgarataa iyay la hadashaa iyay la barantaa iyay wax u sheegtaa iyay wax weydiisaa oo kun walba halkaa ka carraa oo asoo iskula baxay kumahay iskula baxay madow wuxuu yahay aan fahmayniyo marka sheekada aan kuu soo koobay guusha maanta nabad iyo nolol oo ummadda Soomaaliyeed waa nabad iyo nolol hadda geeskeena sitina waa nabad iyo nolol waxaan rabno waa nabad waxaanan doonaynaa waa nolol marka intaa gacmaha isku qabsano aad baan kuu salaamayaa gaarsiiya meel dheer warde shargareeya dhade ha ma gacmayni xanuunaya shargareeya waa arrin muhiima aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa arrinta gobolka city ee soo qaadatana waa aad iyo aad calaykum asalaam kaasina wuxuu ahaa walaalkeen oo nagala qayb galay barnaamijka arrintaas haddaan kusii socdo anigu waan ku raacsanahay cabdo arrintaa uu leeyahay ha u noqoto dhiirigelin ninkii shalay iska casilay gobolka city inuu noqdo haliyey qaran haliyey ku suntan maaragtay nabadda haliyey ku sukan horumarka haliyey dabaqashada ku suntan haddii gobolka city uu isbedel ka dhacana uu noqon doono qofka koobaad ee ka mas'uul noqon doono gobolka amba maamuli doona horta taasi waxa weeyaan anigu halka aan joogaan ka sheegay waxa weeyaan haddii waxaan weeye adduunku waad aragteen inuu isbedel u dhaca si walba u dhaca hadduu maanta isbedel Ethiopia ama gobolka city uu ka dhaco kow waxa ku suntan maamulkiisa iyo taladiisa qofka koobaad ee ku suntan waxa weeyaan waa ninka iscasilay waa ninka wariyaha ah iyakuna maaragtay iscasilay wiya ku suntan aadan allaala ku suntan dadka xaqudirarka ku suntan marka waxaan inii sheegaynaa arrintan maanta ka dhacday Soomaalidana waa ilaahay deen luqad uu na wadaajiya jiro oo maanta dad afka canfarta ku hadlo oonan arrintaasi aynan muhiimiyad u lahayn aynan u galayn taariikhda jirto inkastoo ay ka faa'iideysan karaan dad afka Oromada ku hadla jira kuwa Xabasha ku hadla jira kuwa Soomaali ku hadla jira laakiin anagu haddaan nahay dadka qoomiyadda afka Soomaaliga ku hadla maanta guul waxa noo ah arrintaas ummadaas ay ku dhawaaqday Soomaaliyeed ninkii maxaan ku dhahaa musuqmaasuq ka fogaado mahadsanid ay ugu mahad celiyeen waxaan codsanayaa sida aan xogogaal hayo amba aan wararka ku helay dad aqoon-yahaniina oo xilkas ah ayaa arrimaha gacanta ku haya oo sharci yaqaaniina marka oo arrimahaas document ahaan iyo wax walba maaragtay halkiisii dhigay waxaan codsanayaa oon cod dheer iyo cod gaaban ba halkan ku marinayaa intuu codkaygu yahay in arrintaas ayna noqon lacagtii islaanta maxaan ku dhahay kutublaha ama maaragtay aan oran jiray dumarka casijooga dumarka tareenka la socday ay jaadka ku iibsanayeen ama ay ku iibinayeen inayna noqon islaam walba lacag ay meel ka soo dirto oon taariikh lahayn inay noqoto wax istatistiga inta qof bixisay koodadka lagu shubay sida loo kontroolay qof walba inuu haysto rasiigi maaragtay uu lacagta ku bixiyay qofkani uu isbedeli karaa go'ashu samayn karaa waa la siyaasadayn karaa inuunan sharciyan uu qofkaasi saxeexo oo qoraal loo soo diro oo qof kasta oo magaciisa la helo inuu lacagta soo diray qoraal loo soo sameeyo qoraalkaasi inuu noqdo qoraal qofkaasi hadduu xitaa isbedelo uunan lacagtaasi ay tahay wax isaga uu qaraar uu qaatay una ka laami karin waxbana uu ka bedeli karin mahani waa mahayagii guriga nooga soo baxday oo dhow yidhaahiin oo maaragtay halkan la soo joogsadaan waa dhibaato marka arrintaasi waxaan aan maqlay sidaa waa kan ninkaasina ii xaqiijiyey sidaan annaguna ku maqalay waxa weeyaan waa arrin dad sharci yaqaana oo dowladnimada yaqaana oo aqoon-yahana ay gacmaha ku hayaan si fiican u socota maaragtay faa'iido badan laakiin annaga naguba filan samcadda wanaagsan rabo midowga Afrika iyo UA-ga iyo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa in la dhex dhigo
ummadda Soomaaliyeed ficil ay samaysay oo ku suntan ammaan xafidka iyo dawlad wanaagga iyo nabadda iyo wax isla qabadka iyo isku tashiga iyo isgarab joogga iyo isgargaarka iyo solidarity-ga waxa loo yaqaano oo ummadda Soomaaliyeed ay ku dhaqaaqday loona dhigo jiilasha cusub iyo caalamka kale ee naga luqada duwan iyo wadamada kale loo dhigo ay u noqoto example wali halka cid nolol ka raadisay oo maaragtay in ay ummad u gurman karto qofkaas ay garab joogsan karto si mutadawacnimo ah wali lama arkin waxaan aragnay in baarlamaan sharciyad ay dawladdu u samayso in dhaqaale la siiyo in abni yar la siiyo in maaragtay xasaanad yar la siiyo intaa horey buu u haystay laakiin in hanti intaa la eg oo maguurta la siin karo guryo qasri ah loo dhisi karo maxaan ku dhahay quluubta intaasoo milyan oo qof ay garab joogsan karto ay u mahad celin karto waxaanu arki karnaa arrin waxaanu arki karaa ku cusub luqadda Soomaaliga ama ummadda Soomaaliyeed ku cusub oo guul u ah waxaan leeyahay oo ku dhiirigelinayaa dad dawlad ka soo shaqeeyay oo maamul wanaagga iyo yaa arrintaa gacmaha ku haya waxaan ka walwalayna ma aha laakiin waxaan leenahay de intayadii un baan ku daraynaa annakuna in guddiyo midowga Afrika jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa midowga Yurub Maraykan in ka kooban loo xil saaray dhaqaalahaasi iyo buugga laga qorayo iyo magaca loo bixinayo iyo sida uu ku habboon yahay maaha in iyagu go'aan ka gaadhaan iyagu waxa laga rabaa in ay sidii loo hirgelin lahaa samcad ahaan iyo magac ahaan iyo meesha la dhigi karo iyo duruus ahaan sida loo dhigi karo caalamka looga iibin karo maaragtay arrintaas iyo iyagu shaqo ku leeyihiin iyagu inay lacag ku ururiyaan maaha waa in loo sameeyo structure la yidhaaho intaasoo kun oo qof ayaa lacagtaa bixisay muddada intaa leeg bay ku bixisay sidaabay u bixiyeen waxaasaa lagu qabanayaa wixii sidaasaa loo qabtay waa kaas koontadaabaa lagu soo shubay dadkii wax soo shubay waa ka arshiifkoogii waxaas inay noqoto sumad u taalla ummadda geeska Afrika ummadda caalamka oo dhan oo lagu dhigay iskuullada oo maanta haddaan halkan anu $100 aan ka diro dee $100 dee kolley waxaan u malaynayaa arshiifka inuu galayo oo magacaaga arshiifka aad gelinaysa uu galayo marka waxaan u baahanahay dee aniga laftigayga raba inaan buugga taariikhda ka qayb galo buugga taariikhda inaan ka qayb galaan rabaa marka aad baan inii salaamayaa yaa kaloo ray ka dhiibanaya anigu wixii aan hayay waan inii dhiibay marka bal yaa nala wadaagaya yaan soo qabtaa soo qabsada ama isoo qaba soo qor aad baa idin salaamaya soo qaba soo qora ama soo qabsada waa idin sheegay soo qabsada de hadalka waxaad iga sugayseen maanta oo dhan baan daldalmayay السلام عليكم ميو كسو علي ماناك سو غراعيسو رشيد السلام عليكم بالورن فرماجة umada Soomaaliyeed raakoor cusub raayis ramaysabe leeyahay oo idaacadii waaweynaa caalamka iyo hay'adii waaweynaa caalamka ayaa hadalaya waxa inay noqoto duwaan umada Soomaaliyeed u galay oo ku suntan inay dad maaragtay ninka musuqmaasuq ka hufan maadaama Afrika uu dhacay uu qabtay soo qabta xidha una ay ahayd in wax arshiif oo ay noqoto maaragtay yaa la leeyahay deedo waa ku fahmay waa madacad ka tahay musuq ku jirsi بسك ما حدا هذا ما أظن أنت قف عالم إني هيدا وأقول لا حديدان مياد مقاش أبارنك ما ده كولا العج محل لوجو قرورنا ياله هو بمقلي نبع هدو حيا هي من ملايين يا أفراد تسعى لقرورين لها ما عيسى
bidi waa war ma adaa bixinaya lacagta anaa bixiye bar wal waxaan eeg war afxumada dadka ka daa lacagta anaa bixiyo gacanteeda ka bixi ma adaa bixinaya ka daa afka xun dadka iyo xasidimada haddaan laxu bixinayn kala fadhayso ummadda wanaagga iyo isgarab joogga iyo mahadcelinta ku jirto war dantaada garoo naga bax ey baa tahay waa maxay waxaan waryaa naga bax ey baa tahay waryaa naga bax waryaa naga bax waa maxay waxaan bilaa edeb miskiin baa tahay kule dantaada maad garata adu waxaan bilaa nidaamka waa maxay na soo wicin anaga naga tag waxaan waa maxay qof wixiisa la baxayo oo jeebkiisa kala baxayo oo ficil ula baxayo oo taariikh gelinayo oo wanaag ka shaqaynaya yuu xaasidaya ka waran maxaad ka xaasidaysaa haddii qabriga lagu sii wadana waad ka xaasidaysaa naga tagdha waxaan waa maxay wax isku ogol maaha ummadda soomaaliyeed wax xaasidiina afka soomaaligu kuula hadlaya ka waran waxa meeshaaga naga baxa lama garanaya anaka war wanaagana waa naqanaa waxa weeyaan qofku waa inaad qaymaysid asalaamu calaykum bal waran waaba dabimuudu naga xanaaqsiyaba qofku waa inuu wanaagana garto xumaantana garto laakiin wax walba haddaad tidhaan waan xaasidayaa maaha anu xasan sheekhna waan taageerayaa dowladda cusub waan taageerayaa waan garab joogsanayaa qofkii ugu horreeya idaacad soo dhigay baan ahaa waa halala shaqeeyo hala hambaliyayo hala garab joogsado yidhi baan ahaa marka waxa weeyaan qofku waa inuu wanaag iyo xumaan kala garto dhibaata haysata waxa weeyaan dadkani waa daqsi weeyaan boogaha iyo maaragtay xarwalweelka maaragtay xumaanta oo buusaa u riixaada fiicnaanta uga gubtaa marka waxa weeyaan markii war la helaa tala la helaa baa la yidhi ma garta war waan helnay raggaayo waa kuwa maanta aqalkii aad arkaysa odag loo diyaarinayo loo dhisayo taariikhda galeen ma garat waxaan rajaynayaa markii aqalkaa la dhammeeyo amba arrintaa firaha laga qaado in mar labaad lacag la ururiyo haddee tuugta soomaaliyeed looyare adduunka loo qabsado oo milyanedaa la ururiyo oo la furo meel lagu dacweeyey haddee saysan usoo dhoofin adduunka uga qayb gelin oo adduunka lacagta in la ururiyo kharashkaa la geliyo annagana dee waxaa la yidhi markii war la helaa tala la helaa soomaali weyna tustay dee sidii aan wax u qaban lahayn waan garta ragga ministarada ee debara dhacsanaya dalkeena joogay iska soo dhoodhoofaya sida haddaan idhaahno aqalkii farmaajo la dhisay aqal lamid ahan dibadda ka dhisno diyaarinno meeshii lagu maxkamadayn lahaa inay wadamada okay halkaan kaa dhex galo gurigan la dhisayo baleeg fikirku waxaa la yidhi bini'aadanku wax fiican hadduu ku hadlo waxunbaa ka soo baxo gurigan la dhisayo in lagu daro xafiiska musuq maasuqa ee geeska afrika oo looyaradii iyo dukumentigii iyo xafiis in laga dhiso oo dibaddana looyaro laga qabsado ma garatay waan gartay looyaraduna dibadda fadhiyaan oo lacagta aqalka iyo marka la dhameeyo maaragtay haddeed meelay soomaaliya iskugu tagto shantaa soomaaliyeed halka nin ee musuq maasuq wadaba 1 milyan uu looyarada loogu bixiyo adduunka meel walba de markaa waxaad leedahay in annagana danteennii baaba meesha ka soo baxday oo gurigaa la dhisayo walaalayaal danteennii bay ka soo saareen maasha allah waxayna tustay in nolol la samayn karo sababtoo ayaga waxay ka jawaabtay lacagtan la bixiyey waxay ka jawaabtay shicibkii musuq maasuqa doorashadooda loo qaato oo dhan ma arag inay leeyihiin weli firmaaja madaxweyne nooca doorashadii ay xildhibaanadu ku rideen ayay ka jawaabtay aqalkan la dhisay lacagta 2 milyan iyo wax yaacaysa waxaa kaloo ka jawaabtay soomaali inay haddeed ka tallaabsatay reer iyo qabiil yaroo hoose oo meel ku maamusho dadka xidha waa laba soo maaha inuu nin walba dalkiisii doonayo meeshaasuu qiimo ku leeyahay waan gartay su-aaladooda isku saaran baa aqalka keliya ka jawaabay farmaajo reerkiisu hadday $10,000 bixiyaan 2 milyan ma gaadheen waa run marka annaguna fikirkeenni iyo hadalkaan rogrogayna wuxuu ku soo daray in gurigaa la dhisaya ku suntan musuq maasuqka caaganow waad mahadsan tahay ku suntan in laga dhiso hoyga lagala dagaalamo musuq maasuqa geeska afrika in laga dhiso xitaa oo looyaradii iyo sharciyadii lagu wajahayey la dhex dhigo oo ay u noqoto geeska afrika meel laga hago soo saas baad leedahay lagula xisaabtamo tuuganimo ku dhaqmaya haddana xagaagiisoo xagaabaxayo dibay buu joogaa
faransiiska uu jooga maraykanka ku tagaa dawanin intaas oo milyan dhacay marka guddi la dagaalanka musuqmaasuqa iyo dowlad wanaagga ka shaqeeya in halka xafiis looga dhiso ay dowladaha Afrika oo dhan ku kontroolaan ay ula tagaan control war adii mise sanad xilka hayse intanaad hayse wadanka ma keligaa baa leh ma adi keligaa baa wadanka joogo dad ma kula leeyahay doorasho xalaala ma qabatay doorashadaadu noocay u ekayd kama qayb geli kartid shirka Afrika maadaama doorashada aad qabatay aynan ahayn doorasho xaq ah oo xalaala ya maadaama ay xafiis ay jeelashaada dad ku xidhan sharci darro oo tacaddi iyo kaadkii aad ku xidhay ay ku xidhan yihiin jeelashaada oo ay waayeen xuquuqdii uu maxbuus ku lahaa kama qayb geli kartid dhaqaalaha Afrika iyo bangiga Afrika kama qayb geli kartid iyo maalgelinta kama qayb geli kartid shirka iyo maxaa ku dhahay wax isla qabsiga geeska qaramada Afrika in sidaa la yiraahdo dowlad wanaagga iyo wax isku dhiibka iyo wada halka in laga ma waxa leedahay ummadda Soomaaliyeed maanta taariikhdii ugu weynayd bay gashay marka reedu waxa leeyahay reer Soomaaliyeed taariikh way galeen madaxweynihii ugu horeeyay Afrika wax loo dhisay weeyaan ku darsanno oo lacagteena iyo maalkeena iyo muddeena ku bixino si aan ugu darno aqalka farmaajo in loogu daro wadiyaar maasaqa Soomaalida iyo dowladda ragga aan u dhiibno musuqmaasuqooga meeshii laga dagaalami lahaa ee looyarada adduunka lacag baa dadka kala wada milyanada laga ku darsanno waxa weeyaan walaalaha isgarab qabsaday bay wax faa'iido u yimaadaan ma garan waan gartay ana office-ka ku darsano inaguna magaca dhaga ka gal ما شاء الله واكا بلاك هاي هورتا هايغا رالي نقدو نينكي هالكن كا هوريي وان ku xanaaqay wax weyn kafee badan baan cabay aniguna maanta maaragtay malaha dhiiga igu kacsana horta qofku haduu idaacad hor fadhiyo inuu waan qayliyay oo wax weeyaan wanaag adarkaysi qofku haduu indhaha ciida kaaga rogo wax weeyaan waad ku xanaaqaysaa oo gacantaad ku dhifanaysaa marka halayga raali noqdo hadaan si xun ula dhaqmay ninkii halkii ka horreeyay aad iyo aad baan uga xumahay maaragtay waan ku gooyay oo maaragtay si xun baan ula hadlay halayga raali noqdo isna hayga raali noqdo aad baan u xanaaqay laana waxaan arkay wanaaga iyo farxadda ay muuqato taariikhda buugaas oo la qoray oo ku suntan ummadda Soomaaliyeed iyo maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa oo la dhigay Jamciyadda Qurumaha ka dhaxaysa midowga Afrika midowga Yurub oo la yiraahdo taariikhda waxa sameeyay ummadda Soomaaliyeed oo sida marka imika wada hadalkeeni waxa ka soo dhex baxay hadana labadeena in guriga hanti dhawrka iyo maaragtay maamul wanaaga ee midowga Afrika laga dhex dhiso farmaajo guri u dhisan bayad waxani laakiin farmaajo guri u dhisma maaha guriga ما شاء الله هنا لقى قيب قالوا وانا كقيب قال يا عنقو نول او رير جيبوتي انا حكا قيب قالوا ما شاء الله كنا وين الرأسنا رير جيبوتينا سومالي مع الحي حوق إلا صار حد برض برهالي كمان فوق تدبدي القدر اللي قد تعويه يا واحد يقول تحد على الله يعو ما شاء الله حفيز كاباي مقدو ديواني قايم كبا sheegay waxa loo baahan yahay dadka ku shaqale sida loo sameeyo hay'adaha ama maaragtay inay arintaas ka faa'iideystaan oo hadalka la qaado u gudbi codkeena u gudbi oo u dir waxa weeyaan in laga dhiso farmaajo guri u dhis war farmaajo cid uma baahno isoo urusha lacag ma oran sadaqadeeyo ma oran laakiin waa sharaf u soo hooyatay sharaf ummadda Soomaaliyeed u soo hooyatay أقل كان يدرسه وكجوابي عندي غكما وكجوابي دورسدي بوق كلا غلي إني سنشيك حدي ما أنت إني يبوض أي نقول هاي إنه سنين دم بسوي بحين وبرمجة هين يكجواب هذا ما أقل واحد رك أفر لا تسعى على الأكل سووها يبيلنا إنا ده واحد وكا أنت وما شاء الله قبيلات دي إن لقيت تجي هدي يكجوابي إني بوكسدين أو دلنير ضد نور أصلا بحين صومالي يساقيسا wax badan ku aqalka ka jawaabay aqalkii musuqmaasuqa Soomaalida iyo rag kuraasta haya lagala dagaalami lahaana waa in lagu daro si ayna hadii dibadda ugu soo xagaa waxa laga sharciyeenayaa eeg wuxuu noqonayaa hay'ad awood leh oo Jamciyadda Qurumaha ka tirsan oo ma aragtay la dagaalanto oo laga xukumo halkaas buu noqonayaa maadaama halka laga bilaabay xafiiskii imika Geneva waxa ku yaala xafiiska ugu weyn ee ma aragtay waad ogtahay waxa ku yaala Copenhagen waxa ku yaala waad ogtahay waxa kale oo ku yaala Mareykanka mid baa ku taala saddexda ay hay'adu iyo xarinta Ethiopia midowga Afrika wada ogtahay dhulka ay caalamku degay marka Muqdisho waxa leedahay xaruntii la dagaalanka musuqmaasuqa ee Jamciyadda Qurumaha ka dhaxaysa
caalamkoo dhan ha laga furo muqdisho lacagtaa guriga la dhisayana ha loogu talagala xafiiskii iyo nidaamkii ilaa hay-adaha maalgelinaya waxan xitaa hay-adaha maalgelinta samaynayo laakiin adiga waxaa laga rabaa inaad gurigii iyo hoygii iyo dhulkii aad dhistid si aad ugu suntanaatid ood magacii u qaadatid oo tidhaahd ummadda soomaaliyeed baa hindisaha iyo magaca iyo sharaftaa keentay ood halkaa ka dhisti maasha allah maasha allah aad iyo aad ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبغى بعدك أركيه هو جودي جالس صوص جيبوتي أنت يمدين ويرها ورسمع العمر هي إمسا دورشة يا إمسا دورشة قبض سداد وقا قيب قشة يا كل صار دكتي جودي جي صحيح هوا تدك دورشة كل دكتي بالهم وحويدينه إنه واحد صح هاين يا إنك وما وحويان كما قيب قلي كرت شراكة أفريقيا كما قيب